waxaa maanta magaalada Boorama lagu soo gabagabeeyay barnaamijka shaqo qaran oo muddo 3 bilood u socday qaar ka mid ah haweenkii ku guuleystay imtixaanaadkii hore looga qaaday kuwaasi oo ka koobnaa 70 haween oo ka kala socda dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha kala duwan ee dalka kuwaasi oo muddo dheer lagu tababarayay gudaha jaamacadda Amuud munaasabada lagu soo gabagabeynayay ayaa waxa goob joog ah agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran maareeyaha hay'adda wadooyinka agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka gudoomiyaha jaamacadda Amuud iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka kala socda wasaaradaha kala duwan ee dalka gabdhahan shaqo qaran tiradoodu waa 71 shan ka mid ah waa xagga maqalka ayay naafa ka yihiin 66 kale waxay ka soo dhax baxeen 206 gabdhood oo imtixaan la galay ayay ka soo dhax baxeen barnaamijkanna waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waa barnaamij halabuurkiisa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi barnaamijkan wuxuu weyn ayuu tari doonaa isku xidhka waddanka horumarka nabadgelyada fahamka qarannimo oo waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah waa barnaamijka shaqo qaran ana baan u gudbiyo agaasimaha guud ee barnaamijkaas madaxweynaha qaranka iyo cid kasta oo fikirkan wax ku lahay waxaan arkayaa inuu yahay fikir najaxay waxaan arkayaa inuu yahay fikir wadaniyadda dhalinyarada shaqo qaran gaar ahaan hablaha qaran kor soo qaaday waxaan arkayaa inuu yahay fikir kobciyay aqoonta waxaan aad iyo aad horta idinku mahadnaq qoladan shaqada qaranka madaxweynaha kowka ah iyo departmentka maxamed uu muadin hogaaminayo iyo madaxtooyada iyo wasaaradaha kale ku shaqale horaanu idin dardaaray waxaanu idinku dardaaraynaa oo labaad oo mar labaad saddex ilaahay ku xidhnaado barnaamijkan wuxuu ahaa fikirkii madaxweynaha waa imika dhamaynay 3 bilood ee tababarka civic education-ka maxaa ka dambeeyay maxaa ku xiga sidaan marar badan sheegay waxa bilaabi doontaan muddo shaqo qarana ama internship oo kala ah oo qaranka u shaqeynaysaan oo adeeg bixinaysaan waxa kale oo idinku bushaarinayaa laga bilaabo bisha June dawladdu waxay idin qoondeysay in gunadiinu ay bilaabanto bisha June hadii la yiraahdo ugu dambeynna waxaan wax ka weydiinay ujeedada barnaamijkani iyo waxyaabihii ay ka faa'iideysteen qaar ka mid ah haweenkii ka qayb qaadanayay ayaa waxay sheegeen bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum magacayga Hudaad Amshar Marke waxaan isku jirnay tababarka muddo 3 bilood ah waxyaabahan ku qaadanay waxa kamid ahayd horta totally waxyaabahan aad ka u faa'iideen aad kana u xiiseeyeen waxa kamid ah constitution-ka ashan dawladda u dhisan tahay iyo xaalkeeda iyo waxyaabaha anaga aan rabno inaan ku dabaqno shaqadan aan qabanayno sidoo kale waxaan ka baranay waxyaabo awareness ah oo bulshada sidoo kale la siinayay waxaan soo dhiganaynay barnaamijkan ama aan ku guda jirnay muddo 3 bilood ah ayuu noo socday muddadaas aan ku dhiganay topics aad u fara badan topics-ka mostly waxay khuseeyeen arrimaha dawladda horta wax badan waan ka faa'iiday aniga gaar ahaan oo waxay ugu muhiimsanayd dawladda wax badan kama aqoon soo topics kala qaatay waxay noo saacideen inaan shaqadan hadhow gali doono aan si fiican u sii barano oo sii ogaano